بسم الله الرحمن الرحيم ummadda Soomaalida oo Sweden joogtay maxaa la yiri ninkii muxuu yiri cadaabba waxa ii kaday geeri haddan in Soomaali nin walba dacaska kor la maro aniga qaladkay ma Soomaali weeye in Soomaali soo noqoto ninkii haystay wasiirka oo ah migrationka iyo hay'adaha socdaalka haystay baa wuxuu la soo fariistay meeshan wuxuu yiri Soomaalida sidii aan dowladdeedan aanu ka shaqeyno u shaqeyno oo la yiraahdo Yohan Fashal wuxuu yiri dhibaatada Soomaalida intii aan dowladda qabsanay in Soomaalida dib loo celiyo waxay noqotay dabal bay noqotay muxuu ku saleeyay markaa wuxuu yiri Soomaalida waxay tagaan waa dad dhibaato badan waxay galaan criminal bay galaan jariimooyin waaweyn bay galaan waxay yiri caruurtay kufsadaan xataa waxay yiri waxay dadkay laayaan isku dhac bay sameeyaan inay wax dilaan bay sameeyaan waxaasoo dhan wuxuu yiri waxaan ku gaarnay inaanu dadkayga ka saaro waddanka ka saaro adiga oo Soomaaliya oo weligaana farxin weligaana qoslin halkiina iska taagan meeshii 60 taagan ilaa hadda iska taagan warqan sax iyo reer dhagax iyo reer waxa ku fikirayso war waxa waa la soo dhaafay unitka magaca Soomaalidu waa dhintay celiya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun odaygii xagga Mareykanka joogana waa ku yiri Soomaalidu waa qashin magacii Soomaali ku dhamaanaya yaa ka mas'uulan magaca qalad ma leh you wake up man السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميشنا وصو صاريا waxaan gaalkaas qoray السلام عليكم